markii aad hubsatay in ciidamada Ethiopian ay dalka ku sugan yihiin dareenkaygu runtii haddee dareen muxuu ahaa naxdineed dal la qabsaday oo muxuu ahaa wax walba u halisa cadowgii soo jireenka ahaa ee Soomaaliya weligii u dhaaranayay ee la hortagnaa oo maanta fursad ka helay isaga soo qulqulaya isaga oo weliba dul saaran oo ay hor wadaan oo ay hor kacayaan dadkii dalka u dhashay burcadii dadku ka qaylinayay oo isbaaradu u tiilay oo maxay ahayto dadku ka khaatiga ka taagna oo maxkamadihii ay ka qabanayeen oo ay ka dhasheen shahaado la dirirka isu bedeshay berigii dambe kuwii oo magacii dowlad la siiyey oo iyagiina yihiin ciidankuna kuwoodii yahay ayna u dheer tahay cadowga ay dusha ka saaran ay iyagu leeyihiin annaguna gargaaraya si isku hesheen marka kadib intayadii gudaha joogtay baa markii ugu horeysay is aruursanay kadibna dadkii u firxaday gobolada qaarkoodii ugu soo horreeyay baana soo gaaray shirar baanu qaadanay waanu iswarsanay war maxaa la qabtaa baan nidhi marka sidaasaanu ku go-aan qaadanay in la dagaalamo xariggii ugu horreeyey muqaawamada yaanu markaa halkaa ku gunudnay magaalada Muqdisho intayadii muxuu ahaa magaalada ku hartay iyo raggii ugu horreeyay ee noo soo noqday yaanu go-aan ku qaadanay dagaal iyo muqaawamo iyo wax iska dhicin iyadoo la kaashanayo shacabka Soomaaliyeed dalka iyo dibaddaba waxaad tahay xogayaha guud ee isbahaysiga dowlad xoreynta Soomaaliyeed ku kooban yahay baarlamaanka horta diaspora civil society iyo maxaakiimta hadda kala harteen ninka maxaakiim qayb ka mid ah kala hareen oo asmara ku hartay mislaada hadda inta aan Djibouti la joogta ayagu waa sii socdaan ma isleeyihiin oo kale su'aasha ku dhex jirta in la gaaray waqti la sameeyo reform dib loo eego ururka dib la isku shaandhay ururka mabaadi'da ay noqdaan mid kaliya ee aysan ahayn aysan noqon masaalixda kala duwan oo mid walba oo intaa sheegnay wata horta midaan kaa yar sax waxa hadda muxuu ahaa kala leexday maxaakiimtii kaliya ma ah way ku jiraan qolyooyinkii kale oo ka samaysmay isbahaysigu oo dhamme way ku jiraan oo hadda ragga asmara ku haray maxaakiim kaliya ma ah baarlamaankii baa ku jira diasporihii baa ku jira civil society baa ku jira dadkii aynu cayaanta u bixinay odayadii baa ku jira marka isbahaysigoo guud oo dhan oo guud bay yay taabanaysaa ma ogiya maxaakiimtii kaliya ma aha midda kale markaan usoo gudbo in la kala haro ma suuro gashaa haddana annagu qeybka ma ogin laakiin waxaan isleeyahay maya waa muxuu ahaa in hore loo socdo oo hadafkii la xaqiijiyo inta suurtagalka loo sii dhowaado oo qoladan beesha caalamka oo nala Ethiopia waan bixinaynaa xalkii kale hala keeno inaanu la gurino oo ka daba tagno waxa ay hayaan inay sidii ay noo sheegeen yihiin iyo inaanay ahayn yani waxaa looga daba tegi karaa dhaqanka haddana yani qarkaa loola saaran yahay oo guddiyadii amniga iyo siyaasadda maalin dhaweyd markii halkan ay ku shireen anigu guddiga amnigaan la howlgalay waxaan muxuu ahaa ku dhownahay ajandaha fadhiga xiga waxa weeye ciidamada muxuu ahaa Ethiopia in jadwalkii oo cad loo sameeyo oo la keeno oo xabad joojintiina ay la jaan qaado oo muxuu ahaa amnigii dalka aynu sugno oo dowlad loo dhan yahay wadankii laga sameeyo waa waxa aan u soconno iminka miiskay soo saaran tahay geed ma qariyo wixii oo shalay lagu marmarsiyoonayay hebelaa diidan waa la isla soo dhaafay miiskay saaran tahay maanta waa agenda haddii ay socotana ahlan wa sahlan dee hadday socon weydana kolley waxaan rabnaa annagu inaanay dhinac iyaga ka socon weyno ciddii kaleo eedeeda leh ay soo baxdo waanu sugaynaa marka ka degdegi mayno marka ma qabo sabab loo kala baxo hadda aniga ma qabo qeyb kasta ma ogi anigu mid ah in ururku soo gaaray marxalad ah in dib loo habeeyo oo mabaadii midaysan oo intaas qaybooda aan soo sheegnay ay ku midaysan yihiin la jeexo la qayaxo maxaad u aragtaa taasi waa barnaamij howleed u yaala hoggaanka ururka u yaala haddii la isku shaandhaynayo iyo haddii dib loo sameynayo iyo waa howl kale laakiin hadda hadalkeeda ma hayno sidaan miyaa marka ku tegaysaan idinkoo sidaan u wada socda miyaa ku tegaysaan marka wax wada qaybsiga dowladda ku meel gaarka halka ay noqon doonto ma wada qaybsiba ma si kale ay noqon doontaa aniga
hadda ma ka jawaabi karo. waa wax naga dhiman oo maalmaha soo socda la ogaan doono. laakiin qaabkan aad sheegtay ma idinku sidiinaana un baad socon doontaan. de anagu sidan un baan nahay, sidaas un baan ku soconaynaa. maxaan kaloo yeelaa ma anagoo kala harharnay inaan soconnaa doonaysa. Isa